بروفيسور علي خليف كلايد ayaa si adag uga hadlay in aan la fulin heshiisyadii ay wada gaareen Khaatumo iyo xukuumadii uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Silaanyo waxaanu sheegay in xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi ay ka maagayso cagahana ka jiidayso inay fulisay heshiisyadaasi hadalkaasi ayaa ka sheegay Boroofeser Cali Khaliif Kalayd madal lagu xusayay Allah u naxariistay Axmed Ismaaciil Duqsi oo qayb ka ah halganadii kala duwanaa ee Soomaaliland lagu xoreynayay war Soomaaliland la wada leeyahay haddaynan habkii Axmed Ismaaciil Cabdi iyo ragiisu ay u shaqeeyaan haddaan looga shaqeyn wala meel fog baa laga dooni waxay noqon meel kale oo la sii aadaan ma jirto war xamarna waxa yaala waa ognahay garowe iyo halkan 4.5 bay noqotay war bal ninkii Turkey uu la degan yahay oo uga dhow yahay Burco iyo Hargeysaba oo haddana la Soomaaliland baan rabaa oo aan aaminsanahay oo haddana aan ka dhaqaaqi karaynin heshiiskii madaxweynuhu saxeexay oo baarlamaanku gudbiyay yaan hadda 3 sano ninka odayga Maxamuud Xaashi Cabdi iyo ragiisii arinta meel bay dhigeen war cidna marti uma nihin laakiin an underline it waray arinta haddaan la dhameyn oo dhaxsal loo dhameyn hadda ma aha mid la leeyahay haddaydan waxa qabanana saayasaasan yeelayna waxgeestiisa isaguna ku taageeray hadalka Cali Khaliif Kalayd gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID injineer Faysal Cali Waraabe Soomaaliland waxa cali shortu wala wada leeyahay oo dastuurkeena qoliya Soomaaliland yaale wuxuu leeyahay beelihii 60kii laha laakiin waxaan u baahanahay cadaalad baa aan iraaho war aan hagaajisano oo aynu sameeyna wax loo wada dheeyahay oo inclusive waa maamulka baa loo dheeyahay aan loo dhamayso cali waana runtiisa waa frustrate heshiiska aan la saxeexnay aynaba ilaa maanta waa bandhig waxaan la saxeexay dawlad ma iman xusba kale waa kulmiye la saxeexday heshiiska ayaa ilaa maanta aan wali dhameyn laakiin waan habeenoo toban shirnay 4 habeen baan shirnay waa soo dhaweynay waxa naga soo dhaxgalay xajkina uu ka baxadna haddana dhameeyna insha Allah taala arinta waa ka falxalana insha Allah taala sida ku abshira insha Allah taala wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu u muuqday inuu dhibsaday hadalkaasi ka soo yeeray Cali Khaliif Kalayd ayaa isaguna ku jawaabay waayo waatii laga hadlayay Faysal iyo Cali iyo Faysal aniga Maxamed Xaaji Aadan gudidii qolada Khaatumo la wada shiraysay baan ku ahay waamadii baynu qaadnay habeenkii u dambeeyay Faysalow hoteelka maxaan ku lahayd garaan hadii baynu joognayo qodobadii waynu isla qaadnayo waynu isla dhignayo waxaynu meel dhignay in gidigood wada fuliyay wixii baaqi noqda annaka baaqi noqonaya madal dambana waa lagaga hadlayaa ay gudideena iyo qori ka wada hadlamayso sababta in heshiiskii xisbiga kulmiye uu galay Axmed Silaanyo saxeexay kaasaan Muuse Biixina ku khasbay uu Silaanyo saxeexay isla fuliyo xisbigii kulmiye dawladii markaa haysay baa fulisay xisbiga maanta talada hayaana waa kulmiye kaasuu ka mid yahay imika hadda foundationka iyo halkan madashan aynu mujaahidka geesiga halgamaaga aynu hawshiisa ku wadno ku gargaroocan maayo anugu inaan jawaabo ka bixino laakiin jawaabaha laga bixinay Mukhtaar Ismaaciil Cali Telefishinka Universal Hargeysa.